Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Idin lahaantiinba kulanti wacan oo wanaagsan. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii xasuusta kuwii xabaal galay. Muuqaalkeennan waxa aynu ku soo qaadan doonaa waa kuma Dr. Maxamed Aadan Sheekh. Wuxuu ku dhashay deegaanka Gallaadi ee gobolka Wardheer sannadkii 1936. Dr. Maxamed Aadan Sheekh wuxuu ahaa aqoon-yahan, siyaasi, dalka howlo waxtar leh u soo qabtay, iyo dhakhtar aqoontiisa iyo xirfadiisa Soomaali wax ugu taray. Wuxuuna ahaa qoraa iyo nin fagaarayaasha aqoonta iyo cilmi baarista aad looga dhex yaqiin, kutub kala duwanna daabacay. Dr. Maxamed Aadan Sheekh wuxuu ka mid ahaa ardaydii uu aflixiyey Sheekh Cali Suufi magaalada Dhagaxbuur, kadibna wuxuu u soo wareegay magaalada Muqdisho oo dugsiga macalinimada uga baxay, waqti koobanna ku shaqeeyey baranimo. Kadib horraantii 1950 ayuu waxbarasho u aaday dalka Talyaaniga. Jaamacadda Roma ayuu uga soo qalin jabiyey dhakhtarnimo, wuxuuna dalka ku soo noqday 1963 isagoo noqday dhakhtarkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo dadka qala. Wuxuu ka shaqayn jiray isbitaallada Martin iyo Digfaar. 1970 wuxuu noqday wasiirkii caafimaadka. 1973 wuxuu noqday wasiirka tacliinta sare, wuxuuna qayb weyn ku lahaa aasaasidii kuliyadda jaamacadda, gaar ahaan kuliyadda daawooyinka iyo dhakhtarnimada. Aakhirkii 1974 ayaa la xiray oo kacaankii milatariga la is-afgaran waayey. 9 bilood ayuuna xirnaa. 1980 wuxuu noqday wasiirkii wasaaradda warfaafinta. 1982 mar labaad ayaa la xiray, isagoo lala xiray madax badan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenkii Ismaaciil Cali Cabdulle oo uu 6 sano xabsigii 20 jiruu ku xirnaa, iyadoo Amnesty International ugu magac dartay maxbuuskii siyaasiga ee 1984. markii maxkamadii sii daysayna 1988 ayaa 1 sano oo kale oo guriga lagu xiray. 1990 ayuu dalka Talyaaniga u soo dhoofay, halkaas oo magaalada Torinoia uu soo degay. Shaqadiisii hore ee dhakhtarnimadii ayuu ku noqday, hase yeeshee 1997 ayuu doorasho ka qayb galay, waxaana loo doortay xubin dowladda hoose ee magaalada Torinoia. Muddo kadib wuu ka baxay oo dhakhtarnimadiisii buu ku noqday, isagoo cisbitaalka Torinoia ku yaal ka noqday agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka, halkaas oo uu 1 sano ka hor ka howlgabay intii uusan dhiman. Markii uu geeriyooday, madax ka ahaa xarunta cilmi baaris gobolka Torinoia ee loogu talagalay dhaqanka Afrika. Dr. Maxamed Aadan Sheekh wuxuu qoray 3 buug ayaamihii ugu dambeeyey noloshiisa. Dr. Maxamed Aadan Sheekh wuxuu abaabulay dhaqangelinteedana ku sii dardaarmay isbitaal lagu daaweeyo carruurta oo laga dhiso magaalada Hargeysa. Wuxuu dardaarankaas u dhaafay marwadii uu qabay, dhaqaatiirtii ay wada shaqaynayeen, iyo qoyska reer Aadan Sheekh. Dardaarankii wuu fulay, waxaa magaalada Hargeysa ka dhisan isbitaalkii uu ku dardaarmay. Dr. Maxamed Aadan Sheekh 1 Oktoobar 2010 ayuu ku geeriyooday magaalada Torinoia ee dalka Italy. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaan muuqaalka kan xiga ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.